Vocês não vão acreditar no que esse cara fez. Aqui ele dá uma demonstração de sua força, espremendo essa laranja até sair todo o seu suco. Agora é só misturar bem na massa para que fique macia. Olha a cara do cliente. ka digtoonow fadlan ka digtoonow dantaada ayaa ku jirta inaad daawan muuqaalkan adigoo wax cunaya waxa kugu dhici doona dhibaatooyin nafsi ah iyo dhibaatooyin kale oo wiswis ah imika waad maqashaan cidna mas'uul kama noqon doono sababtoo ah maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay naborle tarle garle صاحبي المقال كان وحده توسن uga yimid Hindiya gaar ahaan meel lagu magacaabo Kerala ayaga islaanta waxa hor yaala afar koob inta uusan bilaabin muuqaalku sidoo kale waxa ag yaala linaan sidoo kalena miisku iska fiican yahay hagaag wiilkeeduna uu daawanaya bismillaah inoo bilaabo muuqaalka ukaadiya fadlan channelka subscribe saar videogan like saar dhaqsada مية والله waxaan talanta way dhaafeen ma aragtaa sida ay muujisada u tahay yani dhowr sakin baa kumay qaadan inay afar baraf ah jibiso anigu maanta hadii aan doonayo inaan cunto karsado halka midee basasha ayaa la ila qabtaa intaan saddex qaybood kala jiro ayaan qaybna saacad haystaa qaybna 2 saacadood qaybta kalena dadkan ku dhahdaa waa bal caawiya wallahi qacan baan u taagay laakiinse inkastoo qacanta hadii ay gloves gashan lahayd ay aad u qurux badnaan lahayd laakiinse isku soo wada duuduubo xawaaraha aad ayaan uga helay ma maxay qorigini كالي ما waxaan dabanaya muuqaal mise waxaan ku jiraa dagaalkii saddexaad adduunka wallahi bilaa washkiiba balay wallahi war nacma وما حسدني المرسل ويل كذا المرسل وحده doonayay inuu wax ka barto kartida hooyadan laakiinse maxay kugu taallaa ugu dambeyntii natiijadii sidan bay noqotay mursal waad ku mahadsantahay sida wanaagsan ayaad u samaysay cabitaankaas laakiinse mid ay idin sheego sharaabkan waa kii aad ku waayay lahaydeen naftiina wala u bille waxaan hooyadan iyo wiilkeedani waxay u soo diyaar garoobeen inay dadka nafta si fudud ku dhaafiyaan maya ish akhas كده وحوحني نمسك والي نو صاري نو وحوحني قدرية شوك بل واحد بلندر كان يسدو ايجي بلندر هذا تقرر وحوي مشين كان واحد لقوش يديو اي واحد كله حرديو ما معي سو ايجي لبعتنكي صنو اي مخايدني فرنت waxaan u maleynaya in aanu meerin ba nin laakiin hal fikrad ay ku soo dhacday oo markasta isweydiiyo shayga nadiifinta la dhaho waa shaqo la yaab leh maanta oo dhan baad wasakh tirtiraysaa oo meeraysaa si aad booska ugu sii barnayso wasakh kale oo bari imanaysa markasta waxaan isweydiiyaa maxaa horta wax laga nadiifiyaaba mar hadii booska loo sii barnaynayo wasakh kale kulli waxa laga yaabaa sidaan u fikray inuu isaguna u fikray kadibna iska badaayba wax nadiifin la dhaho kale waa nooc ma farahan oo wax ku koraya way u galofis u xulan leeyahay indige kan dugo midde indige lama noo ka dhagay anda waxaan ka wadaa reer Hindiya aad baan idin jecelahay balse qacantan aydan ku xulinayn gloves-ku maxay tahay inaad qacantan isticmaasho bila gloves ma barako khaasa oo idinka idin gaara dad baa la waraabinayaaba meheradu macaamiil badan bay leedahay ilaahay idin siyaadiyo laakiinse ogsoonaada sharaabkani waa kad ku indhabeeli lahaydeen كده مارت تين laakiin ma aragtaan cuntooyinka noocan ah iyadoo sida loo sameeyay oo faraha sida loogu walaaqay haddana way ka macaan cuntooyinka hoteelada waaweyn lagu sameeyo gabigooduba waa bilaadhadan cuntooyinka noocan ah ayaa ka macaan talo ma waxa macaaneeya oo dhanaanaya farahan lagu walaaqayo ما شاء الله والله يا بي waxaan misriid baa okay hilib baa lagu daray maya ما شاء الله وكاد ما شاء الله والله wax walba waa okay sax kuwa nadiif
kan cuntada ku soo qaaday isaguna sidoo kale waa nadiif marka wuxuu ku bilaabay saliid okay oo nadiif waliba wuxuu ku kasii hilib haddana wuxuu ku tiray waxaan oo basasha maxaa la idinku sheegay wax kasta waa okay laakiin faraha guun ha adeegsan kada البركة اوكي ملح يربى لو قطري واو راسي تشيكن بان ما شاء الله وعادي تري مركز تو cuntada tijaabinayo wala sameeyaa sida الله الله اوكي dhagaxa bay saareen way kareemiya الله لا 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 way waxa xasi اوكي بيتبا اوكي برياني بيسميه دياغا ايغا والله way u qalmaan saxmadaas iyo jaamkaas way u qalmaan waxa meesha wada dhamaantood waxay sugayaan cuntada nadiifta ah qaabka samayska wallahi aan saacmin waa meheradii ugu horeysay ee uu damacay galo hadii aan halka joogi lahaa waan ka cuni lahaa cuntada laakiin inaan halkan joogaan ka jecelay ha akhas no warkada ما صاحب انا waxaan u baahan inaan si degdeg wax ku helo hal daqiiqo suga wax ma soo qaadanaya ii samir hal daqiiqo bismillaah la ilaaha illa allah wat واتن باجا دكان ما سoo qaadanaya bacdan ayaan u baahday sababtoo ah waan wisuusay waxaan si sahal loo ma daawan karo inaan meesha iska wasakheeyana ma rabo halkaas iskaga rogi doona wixii aan xakameyn kari waayo eega sufraysan ana marna yeele dana ha waa xasi warkada بدي بدي كل يوم واحد محنير ذو كريم ها ولي بو إبنية مية والله ما سعودة هندية زندياه كراه عندك واحد كوضا ما تقارنا راه هندية لما انت الأدبادي شعري لكن سولي جاي إذن ما يمنطونه انت الذي هنا ولي جاي مسكح هذا كما صور دونتو كما أنا فكرت دون اوكي ايس كريم وصمينا يا وكادية لا يرو كادية أو وزارة عافمتك هندية نكان ماركيسان بيا نكان وانا سيدك كسو حدا صوته وحو أديك سيدي فرقشي هندية روا كما ممنوع إن جلوفس لحدا واي لوغو كلا إنه جلوفس حدا نبور لي ترلي كارلي ها وما حي هاي واحد حاولنا ugu badan waa sababta ay ugu dilaacaan Hindi hadda si fiican u ogaay नहीं आपको बुलाएंगे इसी के माध्यम से मेरे पास फोन आया मैंने कहा मेरे पास समय नहीं ninkan wuxuu leeyahay macaamiil badan baan leeyahay macaamiisha badanina waxa ay keenaan buu ku leeyahay dad nooc walba leh sidoo kale wuxuu ku leeyahay waxa la keenaa dad xanuunsanaya oo calooshu taagantay oo doonayeen caloosha la dhaqaajiyo فضلاً مدونكي ugu dambeeyay hadii ay caloosha ku taagneed waa doonaysid caloosha wax ku dhaqaajiya ha moogan meheradan ayaanu ku furnay discount bay ku jirtaa ay ka faa'iideyso oo hore u soo gaad देखिए भाई की कटिंग करने की स्टाइल मैं आपको दिखा दूं طب الأوكادي هاي محل غلغلنا هل ضغطني كل عليو أجا قلنا سوا قيلو أبدي ذبح بلسترو كلوس دقيقة ملانية وقيلدي وأجيب سنة عن مخلص سنة كلا بدو كوني شنو لاتنك وربح هنيك ولا معدو حكيب سنة بس سنة مع ميجو كذو تشيدني Vocês não vão acreditar no que esse cara fez. Aqui ele dá uma demonstração de sua força, espremendo essa laranja até sair todo o seu suco. Agora é só misturar bem na massa para que fique macia. Olha a cara do cliente não se contendo de felicidade. Ele também mistura os ovos de maneira bem axilas para dar forma ao bolinho. Veja que habilidade, bolinho. Olha a felicidade que esse cliente degusta a comida. Mas não se acanhe. Nem todos os chefes são... والله بالله هو معجزة وح والبقى دوهم الأركض